إن شاء الله تعالى آيادهان هداد أخريسيد إلهي جل جلاله عمرك هذا أيوكو بركينيا همك فقرك أو كم ديها فقرك قلبك أي إلهي كاساريا وحانا كم النغنيسا دادك أهل الجنة آيادهان يسكو سيغين وهدافين وطبعا آيادات وصورة المؤمنون كمذا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سورة وسورة آدوين fadligeedana uu sarreeyo qofka mu'minka arrinkiisa dhammaan suuraddaana u soo kulmisay suurad aad u fadli badan weeye waxaa nebi maxamed laga wariyey calayhi salaatu wassalaam inuu yidhi waxaa laygu soo dejiyey 10 aayadood qofka 10kaa aayadood toosiya jannada ayuu gelayaa kadib baa nebi maxamed wuxuu akhriyey suuraddan 10ka aayadood ugu horreeya qad aflaxa almu'minuun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وطبعا كان آيضات قفك أخرية معنى هذا فهمه حفظية سبب إلهي وقدك قفك إنو جنة قلوه همك يمرغدنا إلهي كدل قاضه فقرك وكدل قاضه nolol degan oo wanaagsan uu ku noolaado qofka mu'minka liibaantiisa adduunyo iyo liibaantiisa aakhiro waxa uu xaqiijinaya waa aayadahan waxay ka hadleen haddaad u fiirsatid aayadahan oo aad akhrisid naftaadana dul saartid adduuniya aakhira waad guulaysanaysaa insha Allah sida darteed baa ilaahay wuxuu yidhi waxaa xaqiiqo ah in mu'miniintu ay liibaaneen liibaan dhinac walba leh mu'miniintee weeye waa kuwa salaadooda ku khushuuca oo ilaahay dartii u tukada waa kuwa xumaanta iyo fisqiga iyo maalayacniga iyo heesaha ka jeesta waa kuwa isnadiifiya waa kuwa zakada bixiya waa kuwa xubinkooda taranka iyo cawrada ilaaliya oo ka ilaaliya inay xumaan u isticmaalaan ama ay faydaan oo ay muujiyaan marka laga reebo xaaskiisa ama ninkeeda iyo wixii la midka ah kuwaas ilaahay wuxuu yidhi ku canaanan mayo hadduu tuso xaaska ama ninka wixii ka dambeeya qofkii raaraadiya cawradiisa meel kale la aada wuxuu yidhi kuwa ilaahay waa kuwa xadgudbay rabbigeen tabaaraka wa tacaala qofka ammaanadiisa ilaaliya iyo ballantuu galo yacni waa mu'minka liibaanay weeye salaadooda xifdinaya waqtigeeda iyo tahaaradeeda nadaafadeeda wax kasta u ilaalinaya ilaahay wuxuu yidhi kuwaasi waa kuwa dhaxli doona jannada tan ugu sarraysa ee la yidhaahdo firdows wayna ku waarayaan mana laga saari doono allahu akbar liibaantaadu halkaasay ku jirtaa marka sifaadka ay aayaduhu sheegeen haddii lagaa helo mu'min liibaanay adduun iyo aakhiro ayaa tahay ee haddaba iska raadi hadday kaa maqan yihiinna raadi oo ku tadabbur aayadahaas
rabbigaa kuma dayacayee jalla jalaaluh. waa aayado mucjiso ah oo haddaad akhrisid hamiga, murugada iyo waxyaalahaasoo dhan iyo faqrigaba ilaahay kaa qaadayo, min ahli jannana aad ka mid noqon doontid in shaa allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.